shalay dagaalkii ka dhacay Toore iyo Garuumo waay bari salaadina xabad waay gudoomiyaha Faarax madaxda u yahay cid asaga soo ag martaay waxba annaka nagama qaadi karto ninkii riig loo riigiisa keenana wax allaala wixii ka yimid mas'uuliyadeeda asaga qaada subaxii meed banaanka yaalo qoray inta lees u qaata lees laayo inay ku soo baxaan maan hadeeray qabasho leedahay riigaas ciideele oo meesha waxaan uga qodaynaa tira mindhaa way ka samarsan yihiin dadka riigaga soo dhaweystay oo raba inay ka shaqeystaan meeshaas waxaan u sheegaynaa meeshaas inaysan hantidooda iska keenin Rahmaani Rahiim anigu waxaan ahay Cabdi Xuseen Cali waxaan deegaanka Gaboon gudoomiye ku xigeenka deegaanka Gaboon waxaan dacwo ka nahay dadweynaha aad u jeedaan ama arki doontaan wuxuu dacwo ka yahay ceel ay codsadeen hay'adda IOM ay u keentay isku aqbaleen deegaanku oo rabooday ayaa waxa ka dhacay dad aan deegaanka shaqo ku lahayn oo deegaanka Gaboon banaanka ka ah oo NGO iyo ganacsataa dadkaasoo inay ceelkaas dadka ka dhacaan ku talagalay waxaan rabnaa madaxweynaha Axmed Kaariye Qoorqoor waxaan rabnaa wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaan rabnaa wasiirka tamarta iyo biyaha gudoomiyaha deegaanka Faarax Macallin taliyaha saldhigga Ismaan Cali Hudeey dadka saasoo dadka masaakiinta duurka ku dhacaa inay ka qabtaan ceelkaas aan naga qashoobay shalay dagaalkii ka dhacay Toore iyo Garuumo waay bari salaadina xabad waay inaan riig la keeni karin in ceelkaas niman kale dadka laga qabto ceel ahaantiisu way naga luntay manna loo keeni karo dadweynihii waa kala irdhoobay way is aamini waayay dawladda sharafta leh laamaheeda amniga xisaabsan oo madaxweynuhu u horeeyo oo taliyaha amniga Ismaan Cali Hudeey noo soo xigo ceelkaas musuqmaasuqa la geliyay inay naga joojiyaan ninkii riig loo riigiisa keenana wax allaala wixii ka yimid mas'uuliyadeeda asaga qaada manna loo keeni karo waxaan kamid ah odayaalka Gaboon waxaan dacwo ka nahay ceel Gaboon loo keenay oo hay'adda samafalka ay u keentay ayaa waxa jidgooyo u dhigtay dad heer gurceeloon heer Gaboon baahin iyo dad oo NGO iyo ishtira haday u dhigteen heer Gaboon siyaasadda la gelshay ceelka siyaasadda la gelshay markii siyaasadda la gelshay beeshi waa ku heshii weeydi maamulaha waa u heshii weeyay beelahan waa u heshii weey ceelkaas la dhacay waxaan codsanaynaa amniga sharafta leh oo u horeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo uu ku xigo wasiirka tabarta biyaha oo uu ku xigo Faarax Cabdi Macallin oo uu ku xigo Dhammac Ismaan Cali Hudeey waxaan ka codsanaynaa ceelkaas waa la haleeyay dadweynuhu waa loo diiday lahay oo loo keenay shakhsi ayaa la wareegay ceelkaas waxaan codsanaynaa dhibaato wada dadkiina waa ku heshii waayay siyaasadda la dhexgelshay dhibaato waxaan ahayn nooma wado in la ka qabto abnigu naga qabto dawladdu naga qabato riiga ceelkaas qodaana oo soo imaan dad nabad qaba oo siyaasaddu dhexgelin oo maamul ahaan u nabad qaba beelahaan u nabad qaba in la siiyo waxaan ahay oday kamida deegaanka Gaboon odayaashiisa magacaygu waa Ismaan Xuseen waxaan nahay dacwo ka nahay matoor ay codsadeen deegaanka reer Gaboon ka codsadeen hay'adda oo IOM loona ogolaaday matoorkii mar ay sugayaan dhaxda waxaa ka qabsaday dad NGO iyo ganacsato ah oo kaashaday dad shakhsiyaad ah oo reer Gaboon waxaa dhacday in lagu kala dhinto oo lagu dagaalamo oo gacan la isla aado dadkii ahalka ahaa deriska ahaa wax walba ahaa deegaanka wada joogay matoorka wada codsaday waxay taagan tahay in saakay aan la isku hoyeyn la isku harsayn oo la kala celinayo maalintii shalay ahayd waxa dhacday dad ahalaa in lagu kala qabto
oo tooreeya laga qaado oo budad laga qaado berrina waxay dhaxlee sida muuqata wax ka sii daran iyo colaad ka sii weyn waxaan rabnaa oon codsanaynaa oon dawladda Galmudug madaxweynaheeda wasiirka tamarta iyo biyaha gudoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macallim taliyaha booliska Dhamme Cismaan Cali Hudey iyo intii oda dhaqameed ah ee joogta deegaanka oo warkanagu gaaro waxaan rabnaa in ceelkaas annaga markaan wuxuu taagan yahay allow uusan wax kale naga maran waxaan leenahay waan codsanaynaa oon ku celcelinaynaa matoorkaas in la ka joojiyo waa lagu diriray la isuguma fayooba laguma noola waxay taagan tahay in haddeer la isku dilo ilaahay baan ka magan galaynaa dib intaan ka badan waxaan marka rabnaa oon inta aan soo sheegay iyo intii warkaygu gaaro oo wax ka qaban karta ilaa dawlad federaal waxaan ka rabnaa in la ka joojiyo dib kale uusan noo siyaadin cid saaka u taagan oo heshiisa hadday jirto in lagu wareejiyo dadka riigagga soo dhaweystay oo raba inay ka shaqaystaan meeshaas waxaan u sheegaynaa meeshaas inaysan hantidooda iska keenin waxaan ahay Siciid Xuseen Cali Rooble oo kamida deegaanka Gaboon waxaan dacwo ka nahay hay'adda AOM matoor ay keentay deegaanka ay u keentay deegaanka markay u keentay laga aqbalay sidii loo aqbalay iyo sidii loo haystayna laga bedelay oo la mood ahaasa weydii noqday oo ay qabsadeen dad ganacsato iyo injooley ah oo deegaanka Gaboon ka mid ahayn iyo dad shakhsiyaada oo beesha Gaboon ka mid ah oo dadkaas ay laaluush iyo malasayn ku baxsheen oo coday ah oo ilmo iyo naaga ah oo balliga gudihiisa ku inqilaabeen dadkaas oo qabiilka dantiisa fiirin deegaanka fiirin walaalnimada fiirin xuquuqul insaanka fiirin waxaan leenahay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Galmudug Cismaan Cali Hudey Dhamme taliyaha booliska saldhigga Guriceel oo labada nin oo dadkan soo magacaabay iyo gudoomiyaha Faarax Macalin dhammaantood dadkaas iyo inta mas'uuliyadaas la wadaagta iyo inta wax garanaysa iyo inta taliska meeshaas ka ah oo ay dhibayso dadka ay u yihiin madaxda geedam uma ahan geeday u yihiin ciiday u yihiin dadkay u yihiin cid kasta oo maamul haydana bili aadniga xaq iyo xuquuq ay ku leedahay waxaana la yiri madax lahaada عليكم عبد أضون حبشينه أو تن جرف سنب الله كدقة هينين نقدم مدح ياش دات كم مدح هذا النوع حق بقى الجولية هاي حقوق بقى الجولية هاي حق الجولية هاي حقوق ده الجولية ده أنا وإن الشعب كده ودق الجوليان وإن يوحي لبكو أكعليان وإن يوحي الضن أو أيبال كل يرادو كمارت أو قبطان وإن يوحي أيون كدنتو ذي النظام كده كردينا يوحي إنه كبعتينه كسمينا wixii dadka dadnimadiisa iyo bini'aadnimadiisa iyo ehelnimadiisa kala fogeynayana inay ka waxeeyaan hay'adda annaka noo timid waxay ahayd samafal waxaana loo bedelo sirdoon waxaa loo bedelay wax dadka la iskula diro waxaa loo bedelay wax qof goonihu leedahay waxaana lagu tilmaamay ceelkaas waqtiga ugu dambeeyay codkii ugu dambeeyay gobol ugu dambeeyay inuu wax qof leedahay oo cid ka hadashan in la xirayo waxaan leenahay dadka madaxda oo wax fahmaya oo aan soo tilmaanay oo sheegnay oo sheegi doono ummadda halkaan joogta oo deegaanka xaqqa ka saaran xuquuq ay ku leeyihiin halkii galaasoo naga waxeeya
aaqiradii adduunkaba xisaaban ugu leenna inay ka celiyaan deegaanka iyo dadka shacabka dadka ku tumanaya oo ayuunka shaarkooda noogu soo dugaalaya annaka shakhsiyaad naguma mari karaane dadka ayuunka shaarka ay u yihiin oo abninimada ayuunka ku soo wadanayaan oo ayuunka ay ku wadaan guddoomiyaha faarax madaxda u yahay cid asaga soo agmartaay waxba annaka nagama qaadi karto inuu asagu abninimadiisa iyo karaamadiisa iyo shaarkiisa oo dadka shacabka dadka dulmay uga dhacsado sidaas baan leenahay dadkii maxaa tiri Cismaan Cali Huday waa taliyaha amniga wuxuu kala celi karaa si walba maartu celi karaa awood Allah iskale waan ognahay dib ilaahay leeyahay dadkaasi wuxuu ahay dad ilma adeera ilma abtiya ilma eedaa wiil adeerkiisa wada dhashay hadeerna meydka isla duugi maayaan shalay yoonkii axadii garuumo iyo wuxuu dagaalkaas u tagay asagoo wax ay geelna isku haysan arna isku haysan waxay isku haystaan oo ceelkaas yihiin garuun iyo tooroyo tagay ma abniga iyo dadku ma waxay ka sugayaan subaxii meyd banaanka yaalo qoray inta lees u qaata lees laayo inay ku soo baxaan maan hadeeray qabasho leedahay waxaana la yimid meel laga qabta waa meeshay mirka ka qabta waa daabke hadeer daabka ku dhageen ha ka joojiyeen sidii xalbidaan ha yeeleen matoorkaasu wixii loo keenay waxaan ahayn rugmada shakhsiyaadana qaatay wax anaan iskale mana ka hadli kartidowna jooga waxaan dacwo ka nahay matoor naloo keenay oo hay'adda OM noo keentay oo inta ka dambana ilaahay nooga soo qaaday oo noo keenta nalaga dad NGO-leeya oo reer Gaboon ka mid ahayn aan naga dhacay xog iyo siyaasadana looga qaaday waxna lama lahayn matoorkaas waa weynay waxaan cabasho u nahay madaxweynaha galmudug Cabdi Kaariye Qoorqoor wasiirka Axmed Kaariye Qoorqoor iyo wasiirka tamarta iyo biyaha gudoomiyaha degmada Faarax Macalin taliyaha booliska intaasan cabasho u nahay ceelkaas in laga qabto waa ku dagaashanahay dhibaa ka jira dhibkaas waxaan ka mid ahay anigu odayaalka deegaanka Gaboon waxaan nahay dacwo ka nahay dad deegaanka Gurceel jooga marka hore dacwada waxaan ugu kalifay ceel u soo baxay Gaboon oo hay'ado ay wado oo deegaanka codsaday loona ogolaaday ayaa jiray ceelkaas waxaa dhacday in isbaaro loo dhigtay dad ay dhex u degeen dadkaas oo ganacsato ah NGO-ley ah dadkaas u heshiiyay una kaashaday dad reer Gaboon ah oo shakhsiyaad ah u kaashaday sidaas dacwo nagu kaliftay arrintaasaan dacwo ka nahay waxaan dacwo u nahay dawladda Galmudug madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wasiirka tamarta iyo biyaha gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin dhamme Cismaan Cali Huday qaybahaas kala duwan oo dhammaan isla amniga ah ayaan dacwo u nahay arrintaas aan ka soo hadlay baan dacwo ka nahay dadka Gaboon waa iskula dhaceen waa ku dirireen shalay ugu dambeeydo waa la isugu gacan qaaday ulaan qaadnay tooreeyaan qaadnay muddo badan ay arrintaas u haysatay birina wax kale isku bedelo ka sii adag waxaan rabnaa dadkaas in laga qabto arrintaas in laga joojiyo ceelkaas qofkii keena iyo qofka arrintaas ka shaqeeya macnaha dadkaas inay la meel mariyaan mas'uuliyadda wixii ka dhacayada qaadaydo riigaas cideele oo meeshaas waxaan uga qodaynaa tiraa mindhaa way ka samarsan yihiin haddii dhib ka dhaco na mas'uuliyadda iyaga qaadaya waxaan doonaynaa oo dawladda qaybahaas aan ka soo hadlay oo kala duwan ka codsanaynaa ceelkaas Gaboon fidno ku siyaadiyay dad tashada oo reer miyi ah oo deegaan ah oo tashada oo nabad u dhaxtaal ayagu oo warkiisu soo dhax galay dhaxda dadkaas aan ka hadlayo ay ka qaldeen waxaan doonaynaa ceelkaas kala dhimashan anagu kala taaganay in laga joojiyo